waxaan rabay inaan horta halkan ugu horeyn ka cadeeyo anigoo miirkayga iyo maankayga qaba in Barkhad Jaamac Batuun iyo anagu aanu nahay laba qof oo markaasi isdoortay heshiiyay kadibna isguursaday wabacdayna ilmo Ilaahay ku arsaaqay marka la soo koobo warqadii aan isku guursanay anagu watan aad arkaysan Mushtaaq Cabdi ayaa ka hadashay wararka baraha bulshada muddooyinkii u dambeeyay sida weyn ugu faafay la xiriira iyada iyo xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland Mushtaaq ayaa sheegtay in sifo sharciga waafaqsan isku guursadeen xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun waxaana ay meesha ka saartay wararka baraha bulshada lagu faafiyay ee sheegaya in sifo sharciga baalmarsan ay isku guursadeen xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun warantan iyadoo arrimahaasi faahfaahinaysa Bismillahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Mushtaaq waxaan shirkan jaraa'id u qabtay ama qayb kamid ah saxaafadda ee Somaliland gaar ahaan Hargeysa aan damacaynan ula hadlo laba siyaabood oo markaasi maalmahan u dambeeyay xawayaan baraha bulshada si kala duwan loo wadwaday waxay haayeen arimahaasi mid waxay ahayd in markaasi sharafta iyo cirdiga iyo markaasi qofnimadiisa lagu ciyaaro xildhibaanka Barkhad Jaamac Batuun si kala markaan u dhigana aniga laftigayga ma aragtay sharafteediyana meel lagaga dhaco anoo qof dumara waxa weeyaan muhiim iyo qasabna aan ahayn mar kasta in ma aragtay hadii aan guursanayo iyo hadaanan guursanahay dadweynaha ma aragtay ogaadaan iyadoo qasab hay waxaan rabay inaan horta halkan ugu horeyn ka cadeeyo anigoo miirkayga iyo maankayga qaba in Barkhad Jaamac Batuun iyo anagu aanu nahay laba qof oo markaasi isdoortay heshiiyay kadibna isguursaday wabacdayna ilmo Ilaahay ku arsaaqay waxaan leeyahay dadyoga inta wax ka dhex raadinaya ma aha intani tii wax laga dhex raadin lahaa maaha nimanka siyaasadeynaya Barkhad baa gabadh guursaday aan isku qabiilahayn oo ay uga jeedaan magayo qabiilada kale maadaama sugdi qabiilka yahay waxaan leeyahay nimayahood dibis ugu noqda habla dhasheen ugu yaraan waa qabtaan waxa weeyaan waa la dhalateen haddaydan u dhixin waa u dhixi doontaan oo dawa guursan doontaan marka intii wax laga dhex raadin la ma ahay dib ku noqdo baan leeyahay waxa kale aan sheegayaa anigu Mushtaaq ahaan waxa weeyaan waxyaabo waxa jira dhaqan 200 oo sanadood soo jiray waa run oo anigu shakhsiyan aan waxba ka qaban karin shaqo fara badan iyo hawl badan u baahan aniguna aan dabcan ahayn qof keligii jabin kara deerka caynkaasa waxaan samoodayay in ay 200 oo sanadood kadib sidii dhaanto oo isma lahayn 40 sanadood ka hor ama 30 sanadood ka hor caynkii lahaa ayaa stiil yahay oo dhalinyaro far badan oo wax baratay wax fahmay ayaan islaha way kamid yihiin dad iyagu wax fahmay inaanay waxba ka jirin dhaqanka caynkaasa anoo miirkayga iyo maankayga qaba ayaan guursaday Barkhad caadiyan anigu dhaqamada caynkaas ay dadyogaasi aaminsan yihiin shakhsiyan ma aaminsani wana sababta keentay inaan anigu ninkaasi aan ku qanacsan oo wax weeyaan soo jeeda oo sixranayn oo wax weeyaan caafimaadkayga qaba maskixiyan iyo wax weeyaan jir ahaan baan oo qaba inaan guursado oo markaasi heshiino taasi waa taa inan qof dumara oo waxa weeyaan intii meediyaha timiday tiri warqadii laygu meheriyay baa tan ah waa dareemi kartaan waxa keenay halka waa nimanka siyaasadeeyay waxa weeyaan in sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo waliba tayada lagu ciyaaro lacagayowga ku bixiyay markii la yiri hagaajiye shaqooyinkiina lacagayowga ku bixiyay in markaasi ninka waxa weeyaan leeyahay halala kaco symbol marka warqadii aan anagu isku mehersanay baa tan ah sababtaan u keenay meediyahana waxa weeyaan maadaama oo ilmahayga ruuxu jira ku dhawaad 6 bilood waxa weeyaan bishii lixaad wax yar baa uga dhiman 6 biloodna Soomaali Maxamed gaar ahaan dadyoga siyaasadda ku jira oo wax weey ayaa qaabab kala duwan u adeegsanayay marka arinkaygaasi anagu qasab ma haynan meediyaha inta nimaadna anagu waan iskuursanay ama meherkaygi baa halka ka dhacay wax qasbayaan u garan maayo qasabna ma ahayn Barkhad dad baa ka dhashay weydiistay dadkiiba markii daba lala dagaalayo deelay siday ku dhacday nin caynkaas inuu gabadh caynkaas guursado diidaysan ugu garan maayo waa nin Soomaali muslima isku dhaqan nahay
de waxa weeyaan isku bi'aadnaan nahay marka waxyaabaha sheegaysan anu garan maayo muhiimku waxa weeyaan inaan idin sheego in anagu iyo barkadaan isguursanay oo markaas ilmaha ayagaan dhalayna ee ceebeynaysan ee madaragtay idinko caruur dhalay intiina badani waxa weeyaan hooyooyin iyo aabbo meeran ah haddaydan noqon doona ilmaha yar inta leeg waxa weeyaan ceebta iyo waacaynkan iyo sidan buu xaaladaba socotaan inaan idin idhaahno sida aad moodaysaan ma he waacaynka waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo nimanka leeyahay shaqadiina hagaajiye kadibna aniga sharafteyda iyo cirdigayga dhulka jiidaya haddii aad shaqadiina hagaajiye oo leedinidi wax weeyaan hablo sharaftooda u korkoraysaan oo lacaga ku bixinaysaan in maxaa la yiraahdaa sharafteyda iyo qof bini aadam oo ilaahay abuurtay rabbigiina sameeyayba intuu ina abuur hadana ina karaameeyay inta inagoo gaf iyo qalad maalin walba galay naastura maanagoon qalad galina waxa weeyaan waxa noo ceebaysaan noo daba joogtaan sharaftayda iyo cirdigayga dhulka u jitaan iyo karaamadan leenahay waxaan u maleynayaa wax badan baydaan fahansaneen hadda fahansantina waa yeelaysaan tani waa adduunyo aakhirana way dambaysaa marka waxaan ku gunaanadayaa wax badan saa doonaysaa noqon maayaan anagu noqon mayno oo yeeli mayno inaan intaan soo hor fadhiisano in idhaahno guurkaygiiba caynkan ahaa iyo sidan buu ahaa wax weeyaan tamaanta keentay iyo in warqada meherka aan idin hor keenana waxa keentay uun jiidashada faraha badan arrinkaas sagaalka wajiga kala duwan u sameyseen reerkayaga waxa weeyaan doonteen in ay inta kala xadaan qaarkood aniga igu soo dirtaan dhibaatadan maray tuka badan ay marisaan oo ah waxa weeyaan marka horeba anoo dareemaya culays fara badan oo igaga imanaya dhaqamadii jiray haddana tan maanta jirta halkan iska lahaa xoogaa waad ka yar baxday tan maanta jirtana aad igu darteen hadalku isaga iska badanay waxaan idin leeyahay waxa wadaan suurto gali mayso boqolaal caayuu ka sharaf badan yahay oo ka wanaagsan yahay exactly aniguna boqolaal dumar oo wax weeyaan sharafteyda aniga si kale raba madartiin u sheega baan ka sharaf badanahay sharaftuna qofku wax weeyaan sida dadka loo sheega maahay waa waxa dadku arkayaan marka aad baa u mahadsantihiin كيمك يعني ميديا هم بني سدن عاد كاوجو سيفافين أنت المهيج يرجري iyo intii ka horeysaba jijiidku u jiray oo wax weeyaan markii hore waxay heedoon dhaqankii bay heed siday ku dhacday haw siday isku guursan karaan inanta sidoo ninkani ma gayo iyo wax ay ka seelayeen markii hore imka laakiin waxa timiday propagandadan caynkana gabadh baa la kufsaday iyo inantii baa sixran oo inantii waxba ma kala garanayso waxa ku soo beegay marka mowduuca xilligan waqtigan iyo hadaladan imka isdaafaya wax weeyaan mowduuci baa si balaaday إذا قصب واحد نقطي مركز أنيجي دتك قارسة وعان بين ذي شيء ما يمسي شركة وحيابها قارة يقول صدري دار توقصان دونتان مركز وحاسو كله دديوق عين كاسة دتك إنه وتقنع دكلية وحكم مقلان سوشيال ميديا هو حل صور دقة مركب ولا جود دقة مركز تم باكنتي حلقان إن مدركتيان كهذا مشتاق يتطلب بدنا أرنتينا أديك برخد جوركينا كهذي واحد شيء إن مركز هراء أنا صفة شرعية سوق جورسنين بل أرنت هسأله ما حد كي جوابسه والله سبب تواني جمر كوران قبلها وحايت عن هل كان إمادو ما يدعين ملها بانو ملايني يعني جين توقال كي جاسو مالي ذا ميدي هاي توقف صوفة نستمر ورقد اللي يقول كورسدي بقى تن عمورني يعني جهرتي واين توقال كي جا warqadana hasta waxaan u keenay miidiyaha dadiyowga la sifaqal dambe isku guursadeen ehel baan ka dhashay anigu iyo dad baan ka dhashay ma jirto gabadh la iska guursada marka hore marka warqadani waxay cadeyn u tahay dadiyowga hadalkaagaas aaminsan ee la sifo sharci daraab isku guursadeen dadiyowga hadalkan baa waxa la warqadan baa jawaab u ah warqadii aan isku guursanay baa naga tan ah waxa ninka inta leeg kuwa cabaareenaya boqolkiiba boqol qaarkood ka cibaado badani inuu sifo sharci ama si qaldan gabadh u doonto ama u guursado waxaan u maleynaa waa binaadan horta uu qaldami karaa laakiin waa ninka majurka ay dadka ma suurtoodo marka la soo koobo warqadii aan isku guursanay anagu watan aad arkaysan Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa